xaflad lagu maamuusayay qalin jabinta arday ka qalin jabisay jaamacadda Golis farceeda magaalada Laascaanood ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi sida uu ku soo warramayo wariyaheena magaalada Laascaanood Maxamed Shaqale. dufcadii saddexaad oo ay ka qalin jabiyeen 103 arday oo jaamacadda Golis farceeda Laascaanood ah ayaa ka qabsoontay hoolka Hotel Casuura ee magaalada Laascaanood. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Laascaanood. ugu horreynna waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Golis farceeda magaalada Laascaanood Professor Yusuf Aflahaad. ardaydan qalin jabisay 103 waxay u badan yihiin gabdho sidaad idinku aragtaan. berigii hore waxaa la odhan jiray gabdhaha wax lama baro. waa run anigu dugsigan dhexe markaan dhiganayay gabadh baan ugula jirtay wax gabdhaaba gabadh baan u helisay wax iyaga kale rag baanu ahayn. waxaa aad iyo aad wax loo mahadiyaa maanta 103 arday 73 arday baa waxay yihiin gabdho 30 ardayna waa wiilal. markaan eegnay sharciga u yaalla jaamacadda Golis farca Laascaanood sharciga u yaalla jaamacadda Golis ee guud markaan eegnay dastuurka Somaliland markaan arkay dokumentiga ay soo gudbiyeen xafiisyada imtixaanka iyo dhiinka guud ee jaamacaddu waxaan rabaa inaan idiin sheego inaad mutaysateen digriga koowaad ee jaamacadda ee fakalka caafimaadka. waxaan rabaa digriga koowaad ee aad mutaysateen inaad si fiican oo dadaal leh aad ku mutaysateen si fiican waxaan naga muuqdo markaa salal ama sayla taasna arrinteedu way socotaa. dee markay saa u ballaarato jaamacaddu Yusuf gudoomiyaha Yusuf iyo tiimkiisa Laascaanood ayaa gartay baahida loo qabo jaamacad tayada in ay ka timaado. anigoo marka ugu horeysa idin soo gudbinaya salaam weyn oo diiran oo aan ka sidno gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Golis aasaasaha jaamacadaha Golis Dr. Said Ahmed Hassan oo maanta halkan ka maqan inkastoo qalin jabintii hore uu joogay. dhammaantiin wuu soo salaamay dadka reer Laascaanood. waxa weeye hadalka qadad sababtaan ugu goynaya waxa weeye aad baan u faraxsanahay aad baan ugu qanacsanahay jaamacadda Golis dabar adeygii ay soo sameeyeen waan u malaynayo taqriiban inay 4 sano iyo wax la jira ay noqon karto muddada aad soo qaadateen waxbarashada. ilaahay waxaan idinka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu idin barakeeyo. maanta ay digriga koowaad qaateen waxaan u malaynayaa wax runtii aad iyo aad loogu farxo. geesinimada ay maama carfi samaysana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. fikirka waxa weeye dalkiina iyo diintiina inaad anfacdaan. qofku wuxuu bartaa shakhsigiisana waxbuu bartaa dadkiisana waxtar u bartaa intaba waxaa laga rabaa shakhsi ahaantiina inaad wax u barataa. jaamacadda Golis magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ka qalin jabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda oo ah midhihii ku soo biiray horena ugu jiray kuwii ka mid ahaa jaamacadaha kale ee dalka master u gaari lahaayeen iyo kasii sarreysaba halkaa inaad kala sii wadaan. ugu dambeynna waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Golis farceeda Laascaanood iyo waliba macallimiinta